ugu yaraan 9 ruux oo ay ku jiraan 65 caruur ah ayaa la qaadsiiyay fayraska keena xanuunka HIV/AIDS-ka. waa dhacdo xanuun badan oo si weyn looga hadlayo dalka Pakistan waxayna ka dhacday isla dalkaasi. falkan ayaa waxaa ka dambeeyay dhakhtar Pakistani ah oo cirbad horey loogu duray dad qaba xanuunka HIV/AIDS-ka ku duray dad caafimaad qabay. sargaal booliiska Pakistan u hadlay ayaa sheegay in ay soo xireen dhakhtarka Jimcihii. waxaan soo xirnay dhakhtarka kadib markii aan helnay cabasho ka timid maamulka caafimaadka, ayuu yiri Karmaan Nawaaz oo ah sargaal ka tirsan booliiska. wuxuu intaasi ku daray sargaalka booliiska ka tirsan in loo sheegay dhakhtarka qudhiisa in uu qabo xanuunka HIV/AIDS-ka. booliiska ayaa sheegay in ay baaris ku wadaan dhakhtarkaasi sababta keentay in xanuunka HIV uu qaadsiiyo dadkaasi aadka u faraha badan. arrintan ayaa shaki weyn waxa ay ku abuurtay muwaadiniinta u dhashay dalka Pakistan, kuwaasi oo xilligan ay soo wajahayso cabsi ku aadan goobaha caafimaadka.